ciidamada ammaanka gobolka Togdheer ayaa habeenkii xalay tahaa waxay xabsiga u taxaabeen wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ka mid ah wariyeyaashaas inta badan lagu bartay dhanka samafalka isla markaana ka howlgala magaalada Burco. Haddaba si aanu arintaasi wax uga ogaano waxaanu u kuurgalnay xafiiska barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi. inkastoo barasaabka gobolka Togdheer uu mashquul badan ku jiray waxa noo suura gashay inaanu gudaha u galno xafiiska barasaabka gobolka Togdheer waxaanu wax ka weydiinay arintaasi inkastoo oo barasaabka gobolka Togdheer ka gaabsaday. Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala gobolka Togdheer ayaa hore u sheegay inay ciidamada ammaanku ku daba joogaan isla markaana rabaan inay xabsiga u taxaabaan taas oo ugu dambeyntiina ay ciidamada boolisku ku guuleysteen inay qabtaan kadib markii muddo bilooyina ku dhuumaalaysanayay magaalada Burco. Cabdiraxmaan Rooble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Trike Real TV Burco.